barnaamijka afuri oo sanad walba ay qabteen dhalinyaro dhalatay magaalada Buuhoodle ayaa waxaa ka soo qayb qaatay qurbo-joog u dhalatay magaalada Buuhoodle oo joogta Sweden iyagoo soo wakiishay wariye Cabaas dhalinyarada qabatay barnaamijka afuri walaalka iyo suuqyada waaweyn ee magaalada Buuhoodle waxay ka qabteen galab walba ugu horna halka waxa ka hadlay qaar ka mid dadka afuri dhankan halka waxa ka hadlay Chief Saleymaan oo ah dhalinyarada gacanta ku haysta barnaamijka afuri walaalka ilaahay baa mahadle marka hore marka xiga waxaanu mahad celinaynaa jaaliyada dhulbahanta meel kasta ay joogaan ayaanu mahad celinaynaa sida ay noogu caawiyeen afuradan bisha barakaysan ee Ramadaan ilaa kowdii Ramadaan ilaa maanta oo ay bishu 14 tahay sida u arkaysaan ayay noo soo gaadhay oo loogu afuraa wixii aan soo gaarsiiseen ilaahay waxaanu idinka baryaynaa meesha ka soo saarteen mid khayr qaba ilaahay inuu idinku bedelo oo aydan ka yaqaafin mar labaad waxaan u mahad celinaynaa jaaliyada dhulbahanta ee soo gaarsiisay meel kasta ay joogaan waa ugu mahad celinaynaa sida u arkaysaan bay noo soo gaadhaa sida u arkaysaan baan ugu afurnaa ilaaxanu kala leenahay walaalayaal waxa la wixii kale ee aad hanan kartaan waxaan doonaynaa inaad sidaas oo kale noo soo gaarsiisaan nimanka iyo waxa weeyaan sidaas la noo siiyaa daacadnimada u arkaysaan baa la noo siiyaa tabtaas ay noo soo gaadhaa ilaahay baa mahad iskale أولاً waxaanu maanta joognaa 10kii dhexe ee Ramadaan baan maanta joognaa waxaanu aad iyo aad ugu mahad celinayaa Cabaas oo soo gaarsiiyay lacagtina soo gaarsiiyay marka labaad waxaanu mahad celinayaa jaaliyada dhulbahante ayaanu mahad celinayaa oo ka dambeysay lacagtaasina soo gaadho waxaan leeyahay meesha aad ka soo saarteen ilaahay wax khayr qaba haynaga siiyo waxa lagu jiraa bishii dambi dhaafka lagu jiraa waxaan leeyahay ilaahay dambigiina ha dhaafo oo dambiga waalidiintiina ha dhaafo oo cadaabka ilaahay naga xoreeyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala mahad iskale waxaan joognaa 14kii Ramadaan maalin Jimco ah waxaa deeq lacaga soo gaarsiiyay saxafiga qiimaha badan ee Cabaas wadani oo jooga wadanka Sweden lacagtaas oo ay la soo baxeen jaaliyada dhulbahanta oo joogta wadanka Norway ilaahay subxaanahu wa ta'aala ajar iyo xasanaad ha ka siiyo jaaliyada Cabaasna aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa waxa kale iyaguna aan jaaliyada dhulbahanta aan leenahay meel kasta ay joogtaba bisha Ramadaan nagala soo qayb qaata barnaamijka afuri walaalka ee aanu ka wadno deegaanka Buuhoodle waad arkaysaan sida ay dadkii u afurayaan bishii khayrka lagu jiraa bishii naxariista bishii dambi dhaafka bishii ilaahay adoomadiisa qayb kamid ah oo cadaabka ka xoreynayay marka waxaan idiga codsanaynaa wax kasto aad dadkiina soo gaarsiin kartaanba inaad soo gaarsiisaan waxa foodo inagu soo haysa iyaduna maalinkii qiimaha badnaa ee ciida waxa jira dad aan haysanin waxay ku ciidaan oo aan haysanin waxay maalinka kala qayb qaataan farxadda dadka aabayaasha leh marka idinku waxaad iga codsanaynaa jaaliyadaas inay nagala soo qayb qaataan xiisiinta dadka walaalahooda Maxamuud Salaad telefishinka caalamiga CBA magaalada Buuhoodle